بقرآني فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بإمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بإمعاني أسير بدرب قرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى اللهم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين آمين عشر كي نعاوح ونقندنا عشر كي بقول لباتني التضبع تفسير القرآن الكريم كنب الله بن دونه لبا بقول صدحي صدن أو سورة البقرة كمدة weli waxaynu ku jiraa shu'uuntii iyo xaalaadkii qoyska muslimiinta ah waxaynu ka soo warannay haddii la wada noolaan kari waayo oo labadii ruux ay wada noolaan kari waayaan dariiqa ka furan ee arrinkaa lagu maaraynayo ayuu ilaahay si fiican oo faahfaahsan uu inooga soo warramay marka hadda casharkeennan ugu horreeya aayaddan ugu horreysa ilaahay wuxuu ku xallinayaa reerkii isqaban waayey ee kala tegey haddii ilmo yari dhex yaallo ilmahaasoo xanaano u baahan yaa lagu hallaynayaa yuuse ilaahay mas-uul uga dhigay oo arrinkiisa kala xisaabtamaya u fiirso sida ilaahay xaaladda ruux walba xuquuqdiisa uu u siiyey haweentu sida isu difaacayso iyo siday xaqeeda u raadsanayso waxaa kaloo ilaahay ka warramay ninka iyo arrimihiisa iyo siduu reerka u maamulayo iyo inaanu ku boolo xoftayninoo ku maxaankuha awood u sheeganin wuxuu ilaahay hadda ka warramayaa ilmahan yar oo uurka lagu sido ama ilmahan yar ee jaqniinka u baahan ama ilmahan yar ee xanaanada iyo biilka u baahan yaa lagala xisaabtamayaa mas-uuliyaddiisa taasuu ilaahay bayaaminaya tabaaraka wa tacaala wuxuu marka hore ilaahay xadidayaa ilmaha dhashay ee muslimka ah ee waa labada waalida muslimiinta ay dhaleen intuu xaq u leeyahay in naaska la jaqsiiyo ama hooyadiiba ha jaqsiiso ama gabadh kale haba jaqsiisee ilmaha waxaa ugu fiican muddada ugu fiican in la jaqsiiye ay tahay waa 2 sannadood xawlayni kaamilayn hadday taasi suuroobi weydo ama qoysku ay arrintaa iyagu heshiis kale ay ka qaataanna waynu arki doonnaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi waalwaalidaatu hooyooyinka wax dhalay waalwaalidaatu hooyooyinka carruurta dhalay yurdicna way nuujinayaan oo bimacnaa khabar looga jeedo ha nuujiyeen yurdicna ay fal yurdicna ha nuujiyeen awlaadahunna ubadka ay dhaleen xawlayni 2 sano kaamilayni oo buuxa waase xawlayni kaamilayn yaa u buuxinaya
liman araada ruuxii damca an yutima aradaacata inuu u dhammaystiro ilmihiisa radaacada iyo nuugmada ilmaha raba ilmihiisa yacni gabadha rabta ama qoyska raba inay ilmahooda u dhammaystiraan xilliga nuugmada iyo manfacada naaska inuu ilmuhu kaamil yeesho qoyskii doonaya 2 sannadood ayaa kaamil looga dhigayaa ilmaha naaska intaasi waa xaddiga iyo muddada ugu badan ee ilmo naaska la siin karo weeyaan wuxuu ilaahay ka warramayaa haddaba wa cala almawluudi ilmaha la nuujinayo ee adduunyada ku soo biiray mu-antiisa iyo biilkiisa iyo kharashkiisa ayaa laga rabaa ma hooyadaa laga rabaayo intay kola yar qaadato bannaanka la fadhiisanaysa ama tamaandho yar iibinaysa mise waxaa mas-uulka ah aabbaha mas-uulka ah wuxuu ilaahay ku ogyahay u kala xisaabtamaya waa aabbaha wa cala almawluudi lahu kan loo dhalay wa cala almawluudi lahu waa kan loo dhalaya ilmaha aabbihiis baa laga wadaa risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf haweenkan carruurta u nuujinaya arsaaqday cunayaan oo biilkii ah wa kiswatuhunna dharka ay xidhanayaan inta ay ilmaha u nuujinayaan iyagaa lagu leeyahay raggaa lagu leeyahay masruufka iyo mariinkaba wiilka ninkan carruurta loo dhalay baa lagu leeyahay si macruuf ah oo aan ka badbadinna ahayn maxruuqnimo bakhaylnimana aanay ku jirin wa cala almawluudi lahu axadkan ilmaha loo dhalay waxaa dushiisa ah risquhunna haweenkan ilmaha u nuujinaya arsaaqdooda oo biilkii ah wa kiswatuhunna huga iyo dharkay xidhanayaan isagaa laga rabaa bilmacruufi si weliba macruufahoo la qiyaasayo oo aan ninkuna bakhaylnimo ku darayn gabadhuna dhiidhi aanay ku darayn laa tukallafu nafsun nafnaba lagu kalifi maayo ilaa wascaha wixii awooddeeda ah mooyaane aabbahan wax dhalay inta awooddiisu maalintaa dakhliga soo gashaba loo qiyaasayaa hadduu nin hanti badan yahay inta ilaahay siiyey baa looga qiyaasaya hadduu faqiir yahayna inta ilaahay soo geliyunbaa looga qiyaasaya sababta oo ah nafna ilaahay uma diro xilka iyo mas-uuliyadda ilaa wascaha intay kari karta mooyaane laakiin ninka maalintii 4 mijoodoo jaadoo ma dhaba cunaya ee odhanaya haddana waxba ma haysto kaa laga yeeli maayo maxkamadaana ka goynaysa waana lagu xukumayaa maalin walba inta uu ilmaha siinayo hadduu khayru mas-uul noqdo laa tudaara waalidatun laa tudaara la dhibi maayo waalidatun hooyada wax dhashay biwaladihaa ilmaheeda lagu dhibi maayo walaa mawluudun lahu midkan loo dhalayna laa tudaara lagu dhibi maayo mawluudun lahu midkan isaga loo dhalay biwaladihi ilmihiisa lagu toorjargarayn maayo macnaha wuxuu ka wadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala haweentan wax dhashay ninkan loo dhalay inuu inanka ama ilmaha ay u dhashay inuu ku weyrixiyo oo maalan wuxuu og yahay gabadhan inay carruurta jeceshahay deedna wuxuu yidhi ilmahayga waan kaa qaadanayaa haddaad biil igaga doonayso deedna iyadiina waa qof aad wax u jecel ilmaheedii jeceloo uu og yahay inaanay ilmaha u dhiibaynin wuxuusan rabaa inuu kaga warwareego biilka ilmahanuu ku rabaa inuu ku ciqaabo oo ay ka tanaasusho xuquuqdeeda taasi ma bannaana baa ilaahay leeyahay ilmahan inuu mashkelad iyo ciqaab hooyada ku noqdo oo ciqaab looga dhigto lagu karbaasho ilaahay ma ogola kan wax dhalay ee yacni ninka a laftiisana in ay ku weyrixiso hooyadu oo ay og tahay inuu carruurta jecel yahay dabadeedna marba shuruud dheeraad ah iyo miisaaniyad dheeraad oo xadguduba ay soo dallacdo oo markaa uu yidhaha dee walaal waxaa iskumaynaan ogan ay u turta ilmaha warqaada ilmahaaga aniga maxaa guudka iga saaray iyadoo og inuu ilmaha jecel yaho wax walba uu u hurayo marka ilaahay wuxuu leeyahay ilmahanu inuu karbaash labada waalid loo isticmaalo uu noqdo ma ogolin baa ilaahay leeyahay waa in loo qiyaasaa hadday iyagu isla garan waayaanna waa in maxkamadda loo gudbiyaa maxkamaddu markaa iyadu ay u qarirtaa ilmaha wixii u noqon lahaa xuquuqdiisa iyo biilkiisa hadday labadoodu ay rabaan inay isku karbaashaan ilmaha dhex yaalla laa tudaara lagu kadeedi maayo lagu ciqaabi maayo
waalidatun hooyo wax dhashay lagu weyrixin maayo biwaladihaa ilmaheeda oo lagu ciqaabi maayo walaa mawluudun lahu kii loo dhalayna lagu ciqaabi maayo biwaladihi ilmihiisa haddaba aabbihii ilmahan dhalay waabuu dhintay aabbihii ilmahan dhalay wuu dhintay ilmahan yar oo dhashay mas-uuliyaddiisa yaa ilaahay ku wareejinaya ma islaantaa la weyracanaysa kowdhe mise ciddii ku habboonayd baa loo yacni hawshiisa qaabilaysa ilaahay wuxuu odhanayaa ilmahan yar ee dhashay haddii uu hanti yeelan lahaa oo la dhaxli lahaa inta maanta nool cidda ugu dhaxal xigta ee ilmaha ugu dhaxal xigtaa laga qaadaya mas-uuliyaddiisa isaga xambaaraya sababta oo ama hadduu isagu waxaysaso lagama qaadeen haa maanta isagaa baahan bowda rag maalinba mid baa qaawan soo maaha ilmaha waxaad ka soo qaadaa milyaneer inuu noqdo ciddii dhaxalkiisa qaadan lahayd dhibtiisana ha xambaarto ciddii dhaxalkiisa qaadan lahayd dhibtiisana waa inay xambaartaa cidda ugu dhaxal xigta baa laga rabaa inay mas-uuliyaddiisii la wareegto wa cala alwaariثi axadka dhaxlaya ilmahan waxaa laga rabaa milu daalika wax u dhigma arrintaa xuquuqdaynu soo sheegnay oo ahayd wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna taasaynu soo sheegnay cidda ilmahan yar u dhaxal xigtee dhaxalkiisa qaadan lahayd hadduu xoolo haysto ciddaasaa maanta mas-uul ka noqonaysa haddaan waxbadda ilmihii looga tegin wa cala alwaariثi axadka wax dhaxlaya oo ilmahan dhaxalkiisa yeelan lahaa waxaa dushiisa ahaaday milu daalika xuquuqda aabbihii dhintay dushiisa ahayd mid la mida ayaa ku wareegaysa waa kow ilmihii isagoo aan labadii sannadood dhammaysan hadday labadii waalid oo is-ogolay intay ka wada shuureeyaan oy ka wada tashadaan ay yidhaahdaan ilmahan ma ka gudhinnaa liduruufin ma howl iyagu markaa ay qiimeeyeen darteed shareecadu maxay ka qabtaa waxaa halkaa ka muuqato hooyadu inaanay kelideed ilmaha ka gudhinayn aabbuhuna inaanu ku amri karayn kelidii inay ilmaha ka gudhiso laakiin waxay ka soo baxaysaa gudhintu marka la wada shuuraysto ee hooyada iyo aabbuha arrinkaa ka wada tashadaan wixii ka soo baxa baa lagu dhaqmaya fain araadaa hadday damcaan labada qofee isqaba fisaalan inay gudhiyaan ilmaha inay ka fisaalku waa gudhinta naaska fain araadaa hadday damcaan labada waalid fisaalan inay ilmahoodii ka gudhiyaan can taraadin iyagoo ku kala raaliya minhumaa xaggooda ka timi raalli ahaansho labadooduba ay ku kala raalli yihiinna go'aankaasi uu ku yimaado wa tashaawurin iyo wadatashi hadday go'aankaasi ku yimaado falaa junaaxa calayhima labadaa ruuxee waalidiinta ah ee ay go'aanka ka qaateen ay ka wada raalli yihiin mushaawarada iyo tashigana ku timi arrinkaa go'aanka ka yimaada falaa junaaxa calayhima labadaa ruux wax dembiya looga raacan maayo haddaba haweentii ilmaha dhashay waxay diidday maalan inay ilmihii kuu nuujiso ama haweentii ilmaha dhashay waabay bukootay oo ilmihii maba nuujin karto duruuf baaba timi aanay ku nuujin karaynin ama nin kaleaba guursaday haweentii ilmaha kuu dhashay ee kuu nuujinaysay ayuu nin kaleba guursaday adiga markaa waalidka ee aabbaha ilmaha u ah maxaa kuu bannaan inaad tallaabadee qaaddo waxaa kuu bannaan inaad ilmihii gabadh kale oo kuu nuujisa aad u geysato gabadhaa kuu nuujinaysana aad ku biiliso wain aradtum haddaad doontaan ragow an tastardicuu inaad ka dalbataan inay idiin nuujiyaan awlaadakum ubadkiinna inay haween kale idiin nuujiyaan haddaad ka dalbataan oo aad u geysataan falaa junaaxa calaykum taasina eed iyo dembi ma aha waase shardi idaa sallamtum markaa guddoonsiisaan maa aataytum wixii aad u ballan qaadeen ama siiseen bilmacruufi ee qiyaasta lahaa haweentan kuu nuujinaysa wixii aad kula heshiisay adduun ahaa ee macruufka ahaa ee laysla yiqiinay markaad siiso weeye maxaasaa loo leeyahay ilmaha intaad hooyo kale u dhiibto inaad sidii jeelka halkaa ugaga dhaqaaqdo ayaa la diidayaa sababtoo ah ilmahan hooyada nuujinaysa wax maxaanku dhaha hidiboo ugu yaallaa ma jiro lexejeclo ay ilmaha u xanaanaysoo kalena meesha ma yaallo haddaanay adduun iyo kharash aanay ku shaqaynaynin
ilmihii markaa wuu dayacmayaa dhibaatada caruurnimada ku soo dhacdana hadhow markuu weynaado bay ku soo baxaysaa marka ilaahay wuxuu leeyahay haweentan kuu nuujinaysa xuquuqdeeda waa inaad siisaa si ay iyaduna ilmihii ay kuugu xanaanayso laakiin haddaad haweentii waxbaba siin weydo iyana ilmahaagii way dayacaysaa wain aradtum haddaad damacdaan ragow an tastardicuu inaad haween kale ka nuugma dalabtaan awlaadakum ubadkiinna uga nuugma dalabtaan falaa junaaxa calaykum dembi guudkiinna ma ahaanayo waxaase shardiya idaa sallamtum markaa guddoonsiisaan maa aataytum wixii aad siiseen bilmacruufi wixii aad ballanka ku siiseen oo si fiicanoo laysla yaqaana aad u siisaan wattaquu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu waxaad ogaataan dadow anna allaha ilaahay bimaa tacmaluuna basiirun waxaad samaynaysaan inuu ilaahay arkayo adigoo jeebku kuu buuxo inaad ilmahaagii aad ka hagrato ama aad ku canaado hooyadii sow ilaahay ku arki maayo waaladiina yutawafawna minkum aayaddan qur'aankaana wuxuu ilaahay kaga warramayaa haweentii ninkeedii uu wafaaday intee in la eg bay asayda sidaysa haweenta ninkeedii dhintay intee in la eg ayaa waajib ah inay asayda sido waaladiina kuwii raggiinna ahaa oo yutawafawna la oofsanayey oo minkum mu'miniinta ka mid a raggiinnii mu'miniinta ka mid ahaa haddii qaar la oofsado wayadaruuna ay ka tegayaan aswaajan haween ay qabeen haweenkaasu yatarabasna bianfusihinna naftooda way u kaadinayaanoo way sugayaan 4 ashhurin وعشرا 4 bilood iyo 10 habeen ayay naftooda sugayaan oo aanay guur dambe iyo hawsha iyo qalqaalada aanay gelaynin wixii qurqurxin iyo indhakuulasho iyo nidaamkaana way ka caagayaan waana 4 bilood iyo 10 habeen weeyaan saabuuntu haddaanay lahayn udug way ku maydhan kartaa haweenta asayda sida saliiddu haddaanay lahayn udgoon way ku dhaashan kartaa haweenta asayda sida waxyaalo uun bilic iyo qurux iyo udug iyo nidaamkaale iyo dahab iyo waxaasun baa loo diidaya 4 bilood iyo 10 habeen ayay sidaa ku sugnaanaysaa faidaa balagna ajalahunna muddadaa loo cayimay hadday gaadhsiiyaan oy gaadho haweentii asayda siday falaa junaaxa calaykum dadkii ehelkeeda ahaa iyo dadkii weligeeda ahaa dembi kama saara fii maa shaygii facalna ay yeelaan ay ka falaan fii anfusihinna naftooda siday markaa iyagu u gartaan iyo halkay dhigayaan idinka idinkama saara gabadha yacni laga dhintay waxaa ikhtiyaar iyadaa u leh cidday doonto inay guursato inaa idinku ku kaantorooshaan oo ku qasabtaan oo ninkii kaa dhintay ehelkiisa cid aan ahayn kuuma ogolin tidhaahdaan iyana aanay niyad iyo qalbi u haynin taa shareecadu horay u soo diidayo waxaa la yidhi dee haweenku mataac iyo alaab guriga idiin yaalla oo ninkii dhintay lahaa uu ka dhintay ma ahan 2 ruuxoo shuraako ah oo nolosha wadaagayey bay ahaayeen iyana xor bay ahayd isna waa xor haddii ay dhammaysato ciddadeedaas idinka mas-uuliyad idinka saaran cidday guursanayso ma jirto bilmacruufi si wanaagsan oo shareecada ku beegan hadday dariiqeeda u raacayso wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna khabiir waxaad samaynaysaan ilaahay wuu ogsoon yahay oo caada jaahiligii haweenta la dhexlayey ee la odhan jiray cid aan annaga ahayn ma guursan kalayso waa dumaashayada taasaa ilaahay diidaya halkanna wuxuu ilaahay kaga warramayaa gabadhii laga dhintay ee 4 bilood iyo 10 habeen sugaysay inta ay asaydaa waddo inaan arrin guur lala soo qaadi karin haweentaa laga dhintay ee ninkeedii ka dhintay muddadaa 4 bilood iyo 10 habeen ah waxaa ka xaaraana ragga inay la soo qaadaan guur ama ay ballanqaad guur la galaan sababtu waxa weeyaan baa la ydhaha cilmiyan marka hadda la ogaaday haweenka marka ninkoodu dhinto muraayadaa dhaawacanta qalbigaa wax noqda qalbigaasi wuxuu ku bogsan karaa 4 bilood iyo 10 habeen ugu yaraan ayay ilaabaysaa masiibadaa ku dhacday markaa waxaa dhici karta gabadhii oo maxaanku dhaha geeriyeysan oo murugaysan haddii uu u yimaado nin uu yidhaahdo inaan ku guursadaan rabaa inay uba aragto inuu ku wiirsanayo
halkaana cadaawati ay ka abuuranto oo labadaa ruux dibba aanay salaanta sharciga isooga qaadin. ama gabadhii waxaa laga yaabaa in ay iyadu degdegsato xilliga asayda ay waddo oo inay ka been sheegto xilligii asayda oo iyadoo aanu u dhammaanin inay tidhaahdo wuu ii dhammaaday. meherka wakhtigaa la ridaana ma xidhmo, waana xaaraan weeye. haweentu waxaa loo kaadinayaa intay ilaabayso musiibadii ku dhacday iyo dhaawicii qalbigeeda gaadhay, sababtoo ah qalbigu wuu dhaawacmaa. murugada iyo tiiraanyaduna qofka bini'aadmiga way ku raagtaa hadba musiibada ku dhacday intay la eg tahay darteed. qoontaasi intay bogsanayso waa la sugayaa gabadhaa, ballanna lala geli maayo. laakiin waxaa kuu bannaan sarbeeb, hadal dulka xaadis ah inaad ag dhigdhigto waa kuu ogol lahay. alla maxaa rag iyo rag maxaa ku hadal haya rag iyo rag haddii la yidhaahdo, ama wallaahi gabadh fiican oo aad iyo xaslataan raaraadinaya iyo hadallo noocaasoo kale ah oo nin guurumeera inaad tay lagaa fahmi karo, laakiin inaad iyadoo u socoto dee aan cayimaynin. sarbeeb baa la yidhaha, hadallo uun dulka xaadis ahaa. laakiin hadal qayaxan oo ah gabadhii ahay waan ku calmaday, waan ku guursan doonaa, markaad ciddada dhammaysato cid kale afka ha u kala qaadin iyo aniga iga warhay iyo wixii la mid ah, taasaa la diidaya. sababta oo ah cilalkaa iman kara iyo colaadda muslimiinta dhexdooda ka beermi karta baa shareecadu ka hortegaysa. in qalbigii qoonmay dib haddana loo qarxiyo. walaa junaaxa calaykum, ragow dembi guudkiinna ma saara fii maa shaygii caradtum aa sarbeebtaan bihi shaygaba oo min khidbati الnisaa'i geedu fadhiisiga haweenka ah. khidba haddii kha'da la hoos dhabo waa doonitaanka dumarka loo geed fadhiisto ayaa khidba la yidhaah. haddii kha'da la kor dhabo oo khudba la godana oo la yidhaah khudba la yidhaahdana waa khudbadda jimcaha iyo taa ciideynka iyo wixii la mid ah khudbad la yidhaah. laakiin haddii la hoos dhigo waa geed u fadhiisiga dumarka loo geed fadhiisto. fii maa caradtum wixii aad sarbeebteen bihi oo min khidbati الnisaa'i haween doonitaankeedii ah hadday sarbeeb tahay, aw amase aknantum aad ku qarsateen fii anfusikum, afkaba kalamaydinaan yeedhine adigaa naftaada sii qorshaystay oo waxaad damacsan tahay inaad haweentaa aanay ku dhaafin hadday ciddad baxdo, aduun baana laakiin ku qarsaday naftaada. waxaa naftaada kuugu qarsoonna kuu qabsan mayna baa ilaah yidhi. calima allaahu, ilaahay wuu og yahay annakum idinku satadkuruunahunna, jeeray ahaataba inaad kolley la soo qaadi doontaan oo u sheegi doontaan, ilaahay wuu og yahay. walaakin hase yeeshee ragow laa tuwaaciduuhunna, ha ballamina haweentaa siran si hoos ah, inaad hoos ula hadashaanoo wacad iyo ballan aa wada dhigataan, taa lama ogola. ilaa an taquuluu inaad tidhaahdaan mooyaane qowlan macruufan, hadal wanaagsan inaad tidhaahdo waa lagu ogol yahay. laakiin hadal aad kula ballantoo tidhaahdo gabadhaya anaa ku guursan doonee nin kale ha la sii ballamin iyo wax la mida, taa lama ogola. waxaa kaloo la ogolayn walaa taczimuu, haba jarina cuqdata nikaaxi, guntintii nikaaxu inay xilligaa dhacdo oo la jarana sharcigu waa xaaraan buu leeyay. walaa taczimuu ha goynina cuqdata nikaaxi, intaan isa sii mihirsanno dadkoon iyo noogeyn qudbisir aynu sii gallo, hadhow uun marka aad dhammaysatana waa waxaanku idhahdaa waa labadeenna la yidhaahdo, taana lama ogola. oo wax meherihi ma guntamayo inta gabadhu ay asayda sido. walaa taczimuuha jarina cuqdata nikaaxi, guntintii nikaaxana ha goynina oo yaan mihir dhicin xataa yabluqa alkitaabu, ilaa iyo waajibku uu gaadho ajalahu, muddadii loogu talagalay waajibku intuu gaadhayo ka hor mihir ma dhici karo. waclamuu waxaa ogaataan ana allaha ilaahay yaclamu inuu ogsoon yahay maa fii anfusikum, xaajada naftiinna ku sugan ilaahay wuu ogyahay. faxdaruu, naftu yo idinka adkaanine faxdaruu, feejignaada. waclamuu waxaa ogaataan ana allaha ilaahay hafuurun inuu saamax badna yahay, xaliimun dulqaad badan. laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaa maa lam tamasuhunna. saddex wej oo gabadha loo furi karo laba ka mid a ayaa ilaahay aayaddan qur'aanka uu inoogaga warramaya. gabadh baa la mehersaday, gabadhii intaan lalaba guri gelin ama aan aqal lala gaar noqonin ayaa la furay. gabadha haddaad mehersato oo aad la khulwooto walow yaanad uba galmoonine, ama cawraadkeeda qayb ka mida aad aragto
iyadu waxay ka dhigantay gabadh loo galmoodayoo haddii alla yidhaahdo meherkeeda way yeelanaysaa haddaad guri intaad tagto qol idinka idiin gaara fadhiisataan ama aad daaha soo laalaadsataan ama aad albaabkaba hoosta ka xidhataan mar hadday taasu dhacdo waxay ka dhigan tahay laba ruux oo isla khalwoodo oo isu galmooday bay ka dhigan tahay meherkeedii kaamil buu noqon laakiin iyadoo maraykan joogta ayaad halkan ka mehersatay maalan isma maydinaan arag gurina maydinaan wada degin meelna maydinaan wada fadhiisan cidlo ah oo dadka ka qarsoon deedna calaf baa isuu kiingeli waayo waa kala noqoteen markii aad ismehersanayseena meher cayiman lama sheegin maku mehersadaaye haayii meherso iyo weligeedii haya waan ku siiyey intaasay ku dhammaatay goobtiina meher lagama cayimin sidee la yeelayaa meherkaa lagu kala noqday bilaa cayimaadda a meherka sidee la yeelayaa labadii ruux ee ismehersaday ee meherkii ku kala noqday laakiin qadarka meherka goobta lagu cayimay hadday kala noqdeen maxaa la yeelayaa qiyaasta meherkii intuu noqonaya labadaa masalo ayay ka hadlayaan aayadahan soo socda waanay bannaan tahay gabadha haddaad isfahmi weydaan idinka oo aan maxaanku idhaahdaa is arkin inaad meherka ku kala noqon kartaan ama aan isla cidloobin inaad meherka ku kala noqon kartaan waa masalo bannaan laa junaaxa calaykum guudkiinna ma saara in طallaqtum الnisaaءa haweenkii haddaad sii daysaan maa lam tamasuuhunna intaydinaan taaban aw tafriduu lahunna intaydinaan u fardiyin lahunna iyaga fariidatan wax fariido iyo waajiba oo meherkii ah haddaydinaan u farad yeelin oo aydinaan u cayimin lahunna iyaga fariidatan wax cayimanoo meherana maydinaan sheegin umanaydinaan galmoonin oo meel cidlo ana lamaydinaan tegin oo guriga maydinaan cidlaysanin markay xaaladdu sidaa tahay inaad haddana kala noqotaan labadiinaa ruux wax dhiboo ka taagani dembi maaha laakiin wamaticuuhunna xaal mariya gabadha caynkaa loo galay ee aan meherna markii hore cayinayn iyada oo aan waxba lays aragna la furay sumcad xumaa halkaa ku jirta oo gabadhii dhaawac baad dhegteeda u geysatay xaalmarin baa lagaa rabaa wamaticuuhunna xaal mariya laakiin qadarka lagu xaalmarinayaa wuxuu ku xidhan yahay ninkan tallaabada ka noqoshada a la yimi hadba hayntiisu intay tahay maticuuhunna xaal mariya haweenkan cala almuusici ninkii hodanka ahaa qadaruhu awooddiisa ha ku xaalmariyo wa cala almuqtiri kii faqiirka ahaana qadaruhu awooddiisa hayneed ha ku xaalmariyo haddii laysmari waayona guddi baa loo saarayaa guddidaasaa cayimaysa qadarka xaalmarinta mataacan waa xaalmarin bilmacruufi si wanaag ku jira laysu xaalmarinayo xaqan waana waajib saaran cala almuxsiniina dadka samaha wanaagga iyo khayrka ka shaqeeya ee tallaabadaasi ay ka suurtowday waa waajib baa lagu leeyahay gabadha meherkana aan loo cayimin bannaankana lagu furay maxaanku dha iyadoo aan lays arag laysfuray waa waajib dadka muxsiniinta lagu leeyahay weeye wain طallaqtumuuhunna haweenkii haddaa furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydinaan ka muraad qumsanin oo taabanin waqad faradtum walxaal qad faradtum aa u cayinteen lahunna iyaga fariidatan qadar oo meherana waad u cayinteen haweentiina intaydinaan is arag baad ka laabatood furtay haddana facalaykum dushiinna waxaa ahaaday nisfu maa faradtum qadarkii meherka ahaa eed cayintay niskiisa haddaad maalan ku mehersatay 100 garaam oo dahaba gabadhiina adigoo aan is arag aad furtay 50 garaam oo dahaba baa sharcigu kugu leeyahay ilaa an yacfuuna inay iyagu cafiyaan mooyaane oo haweenkii iyagaa xaq leh meherkaa iyadaa xaq u lahayd nisfi bay yeelatay meherkaa la mehersaday bay niski ku yeelatay meherkuna wuu cayinaa meherkaa cayima niskii bay leedahay ilaa an yacfuuna inay iyadu ay ka boollaysato tira waxba kaama rabe qaada intaana ilaahay dartii baan kuu saamaxay aw amase yacfuu uu cafiyo alladii midkii biyadihi gacantiisa cuqdatu nikaaxi awoodda dalaaqda iyo awoodda meherka ruuxay gacantiisa ku jirtaa waa ninkan wax furaya ninkan awoodda furitaanka lihi inuu isagu cafiyo oo meherkii aanu kala barhba siinin oo u dhammaystirana waa weji furan labada dhinacba kii ku horeeya saamaxaadda labada dhinacba way u bannaantahay ilaa an yacfuuna dumarkan la furay inay idhaahdaan war kontonkii harsanaana kaa dooni maaye hayse ilaahay baan u hadhayaa iyo inuu an yacfuwa uu cafiyo alladii midka biyadihi gacantiisa cuqdatu nikaaxi guntinta ninkii meherka gacanta ku hayey
inuu boqolkiiba iska wada bixiyo wa an tacfuu inaad cafidaan baa aqrabu litaqwa hadba kiinii cafiska ku dheereeya ayaa alla ka cabsigana ugu dhowaansho badan alla ka cabsiga haddaad adigu markaa ugu dhowaansho badato maxaad faa'iidaysaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa hadba kii cafiska badiya ayaa yusriguna u soo degdegaya innagu maxaynu samaynaa soomaalida waxay yidhaahdaan marka la furo haweenta maxkamaddu ay furto baa guriga ugu horeeya ayuu ama gelayaa ninku ama gabadhu gelaysaayo markaasay ku maydhanaysaa gurigaas waxay yidhahdaan hadba kii ugu horeeye maydha ayaa calafku u soo degdegaya markaasaa haweentu guri aanay garanayn ayay albaabka ku garaacaysa walaal waa lay furay guriga aan ku maydhaye bannee bay odhanaysa ninkuna meelaha xamaamadaas u cararaya wuxuu odhanayaa yaan lagaa horguursanin markaasuu isna ma aha arrintu caynka ibliis baa sidaa waxyooday ee halka cafisku ka yimaada ilaahayna ballanta qaaday waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib ilaahay baa ku ballan qaaday yajcal lahu min amrihi yusra hadba kii taqwada u dheereeya baa arrinkiisuna fudayd dhaqso u noqonaya ee laakiin wax la maydho iyo xaflad la dhigto la yidhaahdo ka maydho wixii ku soo maray waxaasoo dhani waa qaacide ibliis weeyaan shaydaanka waxa uu waxyooday marka ilaahay wuxuu leeyahay walaa tansawu lfadla fadliga iyo wanaagga abidkiin ha ilaabina baynakum dhexdiinna ahaaday insaaniyadda idinka dhaxaysa oo islaamnimada idinka dhaxaysa oo maxaanku idhaahdaa isa soo aragga ayaamaad iscalmateen baa idinka dhexeeya xuquuq badan baa isku yeelateene maalintii haddii laysara qabtay bini aadmigu way isqabtaan ilaa carab iyo labadaan baa isugu dhowo way isqaninaane haddii aad isla noolaan kari weydeen dayey walaalnimadii islaamnimo iyo walaalnimadii insaaniyaddu yay lumin in allaha ilaahay bimaa tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan ilaahay waa idinla arkayaa dee xaaladda xakameeya oo bahasha cadhadu iyo idin madax marin ee xuquuqdii ay isku leedihiin ilaaliya intaa markay gaadhay ayaa rabbi iyadoo xuquuqdii iyo xaaladihii qoyska laga hadlayo baa wuxuu soo dhex dhigay waajibkii salaada sababta oo ah iyadoo axkaamtii qoyska lagu jiro baa xukum kale oo meeshaba aan oolayn baa laga hadlaya oo salaadii ah maxaa salaadan loo doortay waajibaadka ilaahay ee faraha badan waxa weeye waxaa layna xasuusinayaa xaalad baa dhacday qofkii xaalad baa ku timi hadday ninkii tahay hadday yani gabadhaba tahay caraa ku timi ciil baa soo maray murugaa soo martay murugada caynkaas ah daawadeedu waa maxay daawadeedu waa salaada rasuulkeennuna waa ina baro markay xaaja ku timaado arrini oo waxoogaa yaro qulbo salaaduu ku carari jiray ilaahayna wuxuu inagu yidhi subxaanahu watacaala wastaciinuu biالصabri waالصalaad marka waxaa layna tusayaa sirta nolosha halka farajku ka dhow yahay oo waxaan ku gaadhay iyo dhaawacan qalbigaaga ku dhacay markiiba seed uga bogsan kartaa waxaad uga bogsanaysaa inaad salaada ilaashato sirtaasaa ku jirta weli axkaamtii qoysku inooma dhammaan iyadoo axkaamtii qoyska aynu ku jira haddana salaadii iyo yani muhimaddeedii la gelaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi xaafiduu cala الصalawaati waالصalaati اlwusطaa in salaadan ay liibaanta adduunka oo dhan iyo aakhire ay ku jirto waxaa kuugu daliila aadaanka maxaa la yidhaha xaya cala alfalaax waxa la isugu yeedhayaana waa salaad weeye liibaantu waxay ku jirtaa waa salaada hadday murugo yaray ku qabsatona bogsiinyaha iyo dhaymaha runtiihi waa salaad ilaahay markaa wuxuu inagula dardaarmay salaada faraj baa ku jira mafaatiix khasaa'in illaahi baa lagu furtaa waa koodhka ilaahay lagula xidhiidho telefoon nambarka ilaahay lagula xidhiidho miyaa taqaanin bay idhaahdeenoo waxa weeyaan bay idhaahdeen 44342 waa koodh yani telefoonka ilaahay lagula hadlo 44342 waa afarta ragcadoode duhurka afarta ragcadoode casarka saddexda ragcadoode maqribka afarta ragcadoode cishaa'iga iyo labada ragcadoode subax intaasaa telefoonka rabbi lagula xidhiidho weeyaan asalaat silaة bayna اllahi wa cabdihi baa nebigu yihi asalaa silaة bayna اllahi wa cabdih waa addoonka iyo ilaahay xidhiidhka dhex mara waa salaada
hadday hawli kugu timaado raqamadaas un garaac farajkaa markiiba imanaya insha allah biniyad saadiqa markaad ku garaacdo xaafiduu ilaaliya cala salawaati salaadaha waxaafiduu ilaaliya asalaati alwustaa weliba salaada u dhaxaysa ayay idinka tegin 5 salaadood baa laydinku leeyahay mid baa ugu dhexdhexaysa jamhuuru lculamaana waxay yidhaahdeen salaada dhexdhexaadka waa casarka weeye axaadiid iyagoo saxiixa daliishanaya war salaada casarna iyo idinka tegin waa wakhtiga shaqada adduunyada aad loogu mashquulsan yahay innaguna barjaha aynu u fadhino ee la qayilayo waxaanu aragnay nin isagoo qayilaya salaaddii casar la addimay taqsiintuna halkaa ay marayso salaaddii baa la addimay isagoo taqsiintii halkaa ku haya ayuu salaaddii xidhay waxaa kugu dhacay waxa iga yara maxaanku idhaahdaa oo igu barhgo-aysaa haddii aan oo de waa sidee sumyad ilaan dheecaankii iyo wixii o dhan baad liqaysaa intii aan salaadda ku jiray mabaan candhuufba maan liqin kuma laho intaan candhuufta marka qofka intaasoo ragcadood markuu tukanayaan candhuuf liqayn waa imisa daqiiquu salaaddii ku tukaday dee nus daqiiqa wey ila qofku nus daqiiqo ka badan candhuufta inuu hunguriga qoohiyo waa inuu qarabkii ka siiyaayo waa salaada tukahoo kale inuu tukaday taasina dee wax dee ilaahay xaggiisa uu kaga badbaaday marka ilaahay salaatulwustahana aad buu inoogula dardaarmay oo waa salaada casarka waquumuu lilaah ilaahay dartii isu taaga qaanitiina iyo muطiciina idinkoo ilaahay aطeecaya aayaddan ka hor intaanay soo degin qofku markuu salaada galo saaxiibadiisa ay isdhinac joogaan wuu la sheekaysan jiray marka aayaddani soo degtay baa la mamnuucay in qofku uu salaada dhexdeeda ku hadlo fain khiftum sinaba salaada looma doynayo xataa xaalad dagaal hadday tahay salaadda iyada lagama tago haddii haddaba aan cabsanayo cadawi eryanayo ama daad aan ka cararayo ama dabba aan ka cararayo ama libaaxba aan ka cararayo salaadiina ay sii gabaabsi tahay maxaan samaynaya orodkaan ku tukanaya socodkaan ku tukanaya laygama saamaxayo salaaddii fain khiftum soomaaliduna in badan markaan daraaseeyo on isbitaallada iyo dhulkaa maray qofku markaa uu sariirta geerida saaran yahay salaadba ma tukado inta badan salaadda way iska daayaan xaaladda safarkana soomaali badan oo la rafiiqay marka ay safarka galaan salaaddaba ma tukadaan rasuulkuna wuxuu yidhi innama alacmaalu bilkhawaatim acmaasha aad soo waday oo dhan khaatimada u dambaysay laguugu dhufto ayuunbay ku dhan tahay haddii taariku salaad laguugu dhufto adoo adduunyada ka sii baxaya saacadihii ugu dambeeyey maxay faa'iide kuu tahay intii aad soo tukanaysay wakhtiyada aad safarka ku jirto waa wakhtiyada halista aad u dhowdahay wakhtiyada xanuunka aad ku jirto waa wakhtiyada geerida aad u dhowdahay wakhtiyadaasoo kaley tahay in lagu mitiro salaadda oo aanay salaaddu kaaga tegin sinaba xataa haddii aad sharjoog ama fadhi ama waa inaad jiif ku tukataa xataa dagaal haddii lagu jirana waa inaad orodka ku tukataa fain khiftum haddaa cabsataan fasalluu tukada rijaalan idinkoo lug ah aw rukbaanan ama idinkoo gaadiidkii saaran fain amintum haddaad aamin noqotaan oo cabsidii dhammaato fadkuru llaha ilaahay xusoo tukada kamaa callamakum siduu ilaahay idiin baray maa lam takuunuu taclamuun waxaydinaan horeba u ahayn yani kuwa yaqaana cilmigii diineed iyo cibaadada aydinaan hore u aqoonin sidii la idiin baray u tukada weeyaan intaasi waa salaaddii ku soo noqo haddaba axkaamtii qoyska waaladiina yutawafawna minkum waaladiina ragga yutawafawna la oofsaday oo minkum idinka idinka mida aayaddan carabka aan saaray jamhuuru culamaa atafsiir waxay leeyihiin waa la nasakhay oo aayadda ka horaysay aynu soo marray 4 bilood iyo 10 habeen sheegaysa ayaa nasakhday waxaa kaloo la nasakhay xagga maxaanku dhaha dardaarankana waxaa lagu nasakhay aayadihii aynu ka soo marray suuratu nisaa ee dhaxalka qaybinayey marka labadaa qaybood bay ku nasakhan tahay aayaddani waaladiina duulka oo waxay ahaan jirtay marka gabadha laga dhinto awal alislaam inay asayda sido 1 sano oo kaamila halkaa sano ee kaamilka ana dhaxalmay lahayne ninkaa u sii dardaarmayey sanadkaa gabadha aan ka dhimanayo guriga biil yacni kiradiisu waa intaasi ha loo sii qadimo biilka ay u baahantayna markii la qiyaasay intaasuu noqonaya sanadkaasi ha la siiyo saasaa la yeeli jiray markii dambe ilaahay 4 bilood iyo 10 habeen buu ka dhigay asaydii xaggii biilkana waxaa loo raaciyey dhaxalkeedii
والذين دولك يتوفون الله أفسن ومنكم مسلمين تكمدا ويذرون كتجيا أزواجا هوين قبين بكتجيا فعليهم عليهم تشهد وحاها وصية دردارا فليوصوا هالدردار من وصية دردارا لأزواجهم هوينك أي كتجين هو دردار من متاعا وحيكون عن النولادان إلى الحول انتي سنتك غير إخراج إيجو عن هوينك نقولي جودا كبحدون سنتك قولي جودا هيسكد جنادان بيلكي إيو كردنا ننكاسي دردار ما يبحنايا والذين دولك يتوفون الله أبصنا يرجينا ومنكم يذكر رجينا كمذا مسلمين تأه ويذرون إكتجي أزواجا هوين قبين فليوصوا هالدردار من وصية دردارا لأزواجهم هوينك قبين يكدمان يان هو دردار من متاعا قدر يكسر راحيستان ما يكون ولادان إلى الحول انتي سندا غير إخراج ولكن بحيتان الآن هوينتو وأين يقولي جيدا كحسشا فإن خرجنا هذي هوينك بحان سند كاجوديهيسا فلا جناح عليكم أولياء الميت نكا دنت عدي أهل كيسا أهيد بالله ليايو فلا جناح عليهم إذا دم جود كينا إذن كدم بإذن كما صار رجع أهل كوها نكي دنت جبرنا المسؤول كأنت كأهايو فيما فعلنا وحي أي سمعيان في أنفسهن نفتو ذا وحي أسمعيان ومن معروف وناقية سماع هوينتو هذي دنيه إذا قريقا وقبحضو oo aanay macsiyo sameynaynin ha oranina ha ka bixina wixii uu macruuf loo eegaya wallahu ilaahayna aziizun hakiim awood badan xikmad badan weeye walil mutallaqaati haweenka la furay dhamaantood mataacun waxa uu yaani lagu leeyahay waxa yaani u sugnaaday xaal marin bil macruuf si wanaag ku jiro aayadan quraanka culimadu siyaabo badan bay u macneeyaan oo waxay leeyeen xaal marinta qofta la siinayo ما قفتي أن مهر كذا العيمين أي نصاء رجنايبا مسمى عطلاق أردني هوينتو كدعو أيام مهر كذا قدر حال مرين وديرادة بالصين يا وحي أبديهن إلا اللي هي هدوم طلاق دعو داو عبايمي داو عايمي كبكي سيبا لغار ربا أو حال مرينا مهر كان حقوق دي مركي هرأي كوية لتويه طلاقاً دعينا داوعاً بكسيه سي ديمه سويان وللمطلقات هوينك لفري متاع وحا أسقنادي إلا حال مريو بالمعروف سقياس له لقرنيو حقاً على المتقين وحين واجب كنتهي ضمان ذاتك متقين طلاق كدعو كذلك السداساء يبين الله لكم آياته إلهي ويدينكم بيامين يا آيات كيسا لعلكم تعقلون إن فهمتان العقل يلتان سيدا إلهي إذنك لهاجيو أي حقيقة مركا كن قونيسان هل كان مركو إلهي كصور رمي قويسك يسيدي الله حلل لها شؤون تودا أي رب تبارك وتعالى وحو كور رميا بدبادة ما تدا إيو محان كودا هذا ضلك إيو الدين تبدبادة ديدو محاي كجرتا وحي كجرتا روح مسلم كأهو إلى شده ملقهيس يشرفتيسا أو نفتيسا iyo maalkiisaba u hura ilaalinta dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa iyo maxaan ku liiclaa kalimatillah wuxuu markaa ilaahay miithaalu soo qaadanaya ummadihii inaga horeeyay dad inta la yidhi jihaatama jihaadkii ka cararay oo iyagoo meel cidla amaraya dhammaantoodba ilaahay masiibo ku rido wada dhinteen oo haddana mar labaad dib loo soo nooleeyey iyo qaar intay la dhibaateeyey oo la rafaadiyey intay ilaahay ka dalbadeen oo intay nabigoodii u yimaadeen ilaahdeen inaanu wax iska celinaan rabnaaye ilaahay ha noo soo magacaabo abaanduule na dagaal geliya oo deedna markii ilaahay u soo magacaabay abaanduulihii dagaalgeliyaha ahaa in badan oo kuwii ka mid ahaa wixii ay ilaahay ka dalbadeen kaga baxay waana reer bani israa'iil labada qoysba arrinka caynkaasa iyo sidii markii dambe intii yarayd ee maxaan ku dhahay amarka ilaahay qaadatay uu ugu gargaaray ayaa aayadahan soo socda guud ahaan ay ka warrami doonaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam taclam miyaanad ogeyn ama alam tara ila aladiina kharajuu inama ka war haysaa ila aladiina kuwii kharajuu dareeray min diyaarihim aqalladii ay deganaayeen bay iskaga wada dareeraan ilaa maatadood guryihii bay faaruqiyeen walxaal hum uluufun iyagoo kumanyaal ah 70,000 oo qof bay ahaayeen oo reer bani israa'iila nebigoodii baa wuxuu yidhi dagaal aynu gallo gaalada iska celinno
iyagoo dagaalka carara bay yidhaahdeen annagu dagaal ma gelayna meel aanu ku badbaadno ayaanu raadsanaynaa nimankana dalkaba waa uga baxaynaa maxay laakiin la cararayeen xadara almowti waxay ka feejignaanayeen mowt ayay ka xeeladaysanayeen ka feejignaanayeen markay ka carareen jihaadkii ama waxaa la yidhaahdaa qowl labaad oo ah meel agtooda ah ayaa daacuun baa ka dilaacay deedna waxay yidhaahdeen si aydnaan u dhimanin aan ka yaacna geerida markay in yar magaaladii faaruqiyeenba intoodiiba waa la laayey haddana muddo ka bacdi ayuu ilaahay soo nooleeyey alam tara ee alam taclam miyaanad ogeyn ila aladiina kuwii kharajuu dareeray oo baxay min diyaarihim aqaladoodii bay ka baxeen wahum uluufun iyagoo kumanyaal ah xadara almowti waxay intaa ka feejignaayeen geerida faqaala wuxuu yidhi lahum allah ilaahay baa amar bixiyo wuxuu ku yidhi muutuu dhinta way wada dhinteen uma axyaahum muddo yaroo kooban dabadeed haddana ilaahay wuu soo nooleeyey ina allaha ilaahay laduu fadlin waa mid u saaxiiba fadli cala annaasi dadka uu galladay walaakina akara annaasi laa yashkuruun ha yeeshee dadka badankiisu mahadnaq lama yimaadaan waqaatiluu muslimow dagaalama fii sabiili illaahi ilaahay kelimadiisu si ay u sarrayso u dagaalama taasaa sharaftiinna iyo wanaaggiinnuba ku sugan yahay waclamuu waxaad ogaataan ana allaha ilaahay samiicun caliim inuu maqlo uu og yahayna ogaada man waa kuma daa axadkaasi man waa kuma daa ruuxaasi waa kuma alladii ruuxaaso yuqridullaaha ilaahay amaahinaya qardan xasanan gashi iyo amaah wacan yaa ilaahay hortii geysanaya ilaahay waxba uma baahna waana hani oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ma faqriyo wuxuuse ka wadaa innagu dhexdeenna isu maslaxaya oo waxaad hor ilaahay sadaqa ula baxdo waxaad qalbigaaga u sheegtaa waxaad ilaahay hortii geysatay inuu yahay ilaahayna aanu kaa dafiraynin hadhow man waa kuma daa ruuxa geesigee yacni deeqsigii waa kuma alladii kaasoo yuqridu llaha amaahinaya alleh qardan xasanan amaah wacan yaa sadaqadaysanayo hor ilaahay yaa sadaqa la baxayaa laga wadaa oo haddii hor ilaahay aad sadaqada ula baxdaan idinkoo ku kalsoon inaad ilaahay agtiisa ka heli doontaan markaa fa yudaacifahu uu deedna u labanlaabaa ilaahay lahu ruuxa adcaafan kaiiratan laalaabyo badan yaa sadaqadiisa looga dhigaayo ilaahay dartii waxgeysanaya wallaahu ilaahay yaqbidu isaga arsaaqda cidhiidhiya wayabsutu isagaana u fidiya liman yashaau cidduu doono wailayhi turjacuun faqiir iyo hani labadaba ilaahay baa abuuray wailayhi ilaahay xaggiisunba turjacuuna laydiin soo celinaya alam tara ila almala'i min bani israa'iila halkanna waa qowmkii labaad ee ka dalbaday nebigooda in abbaanduulo loo magacaabo si ay gaalada isooga celiyaan iyo siday marba ugu wacadfureeyeen alam tara miyaanad ogeyn ila almala'i madaxyaweyntii nimankii maxaanku idhaahdaa guurtida ahaa oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka socday min bacdi muusa nebi muuse dabadi niman baa yimi waxay u yimaadeen nebigoodii ayay u yimaadeen nebigooda markaa taariikhdu waxay tiraa qoladaas nebigii ku beegnaa waxaa la odhan jiray xasqiil xa iyo za qaaf iyo ya iyo laam xasqiil baa la odhan jiray bay yidhahdaan waa culimmada taariikhdu miyaanad ogeyn ila almala'i guurtidii min bani israa'iila ka socotay reer bani israa'iil min bacdi muusa muuse dabadii bay ahaayeen id wakhti qaaluu ay yidhaahdeen linabiyin lahum nebi iyagu ay lahaayeenoo wakhtigaa nebigooda ahaa ayay u yimaadeen waxaanay ku yidhaahdeen ibcad noo soo saaroo noo xul lanaa annaga melikan nin boqoroo abbaanduulo ah noo magacow bay yidhaahdeen nin boqora oo abbaanduulo oo ciidanka abbaanduulo u noqda noo cayin nuqaatil fii sabiili illaah aan dagaalanno ilaahay jidhkiisae qaala wuxuu ku yidhi isagoo yaqaanadee dabeecadda reer bani israa'iil nille waa u teliyey ummadna nin u teliyey nin tugsada unbaa yaqaan baa la yidhaah wuu u soo teliyey nebigan xasqiil la yidhaahda qaala wuxuu ku yidhi hal casaytum warduliya way isnaqaanaaye hal casaytum ma laga yaabaa ma laydinka yaabaa in kutiba calaykum haddii la idinku faral yeelo dushiinna alqitaalu dagaalka allaa tuqaatiluu inaad diriri weydaan qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa lanaa oo sabab aanaan u dagaalamayn wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday allaa nuqaatilo aanaan ugu dagaalamayn fii sabiili illaahi hor ilaahay inaan u dagaalanno maxaa naga hortaagan weliba intaa waxaa noo dheer waqad ukhrijnaa waxaana laga saaray min diyaarina niman gaala ah baa noo xoog sheegtayoo guryaha iyagii bay haystaanoo inaga saareen
wa abnaa'ina ubadkayagii ayaa la addoonsanayaa oo la haystaa iyadoo aan ceebtaa iyo caarkaasina na saaran yahay oo aannu ceebtaa ka maydhan kari laha adduunyadii meel aannu ka marro la'nahay ilaahay dartii u dagaalamana nala leeyahay maxaan ka weynay dagaal waan iska celinaynaa maxaa noo nool haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantahay falammaa goortii kutiba calayhim alqitaalu markii dagaalkii lagu faral yeelay tawallow way noqdeen way jeesteen ilaa qaliilan minhum in yaroo iyaga ka mida mooyaane wallaahu caliimun biaalimiin ilaahay waa ogyahay oo waa garanaya daalimiinta wa qaala wuxuu ku yidhi marka lahum iyaga nebiyuhum horta markii ugu horraysay dagaalkii la faral yeelayba intaan abbaanduulkii la magacaabinba rag badan bay wash ka tidhi halkaa qayb baa ku hadhay haddana dadkii isku duubnaa ee dagaalka dalbanayey ee lahaa wamaallana allah nuqaatilo lahaa mar allaaliya markii la yidhi dagaal aayado dagaalka waajibinaya soo degeen horta in badan baa hadhay halkaa kow imtixaan labaad wa qaala lahum nebiyuhum goortaasaa nebigoodii ku yidhi haddii dagaalkii la waajibiyey ina allaha ilaahay qad bacaa wuxuu idiin xulo idiin soo saaray lakum idinka taaluuta nin la yidhaahdo taaluut ayuu ilaahay idinka dhigay melikan abbaanduule boqorkaa i weydiiseen iyo abbaanduulkiisa waxaa ilaahay idiin dooray ninka taaluut la yidha waa halkaana rag baa ku hadhoo waxay idhaahdeen oo taaluut waa laangaabe raggii talada hayn jiray qabaa'ilkii baa weliba nool oo derra ku jiraah maxaa raggaa looga soo saari waayey abbaanduulka xilka noocan oo kale ah qabiil baan u qaybsan jirayoo dee ree hebel baa lahaa bahasha jilibkaasaa lahaan jiray qaaluu waxay idhaahdeen annaa yakuunu lahu lmulku oo halkay u soo maray mulkigiiyo boqortinimadu annaa kayfa sideebaa yakuunu uu ugu ahaanaya lahu taaluut almulku oo siduu abbaanduul iyo boqor u noqdaa calaynaa korkayaga raggii abbaanduulayaasha ahaan jiray talin jiray baaba joogee wa naxnu axaqu bilmulki annagoo ree hebelah ayaaba uga mudan inaannu boqorro noqonno minhu isaga ninkan dadkii boqorrada noqon jiray soo talin jiray bahdoodiiba ma ahan halkaana qayb baa qabyaalad ku hadhay waxay weliba ku cileeyeenoo yidhaahdeen horta ninkanu dadkii talin jiray kama dhalan kow walam yu'ta xagga rabbina lagama siinin sacatan min almaali waa sacnaan adduunna nin haysta ma aho de waaba faqiir nin maal haystana ma aho dadka dee ku kala seexseexinaya oo dadka ku kala diraya ma ahan labadaas sababoodba annagu ninkan ku raaci mayna bay yidhaahdeen halkaana qayb baa ku hadhay qaala wuxuu yidhi markaa nebigoodiisa yacni xasqiil la odhanayey wuxuu ku yidhi ina allaha ilaahay istafaahu axadkan idinku farta ku fiiqdeen ee aad xaqirteen kaasuu ilaahay idiin dooray calaykum dushiinna ama hunguriga ha idiin maro ama yuu idiin marin laba shay oo madaxda lagu doortana ilaahay wuu siiyey idinku laba shay oo maadiya ka hadasheen laba shay oo madaxda lagu doortay qiimo ku yeeshaanna ilaahay baa wadaaca dhigay ninkan wasaadahu ilaahay wuxuu u siyaadiyey uu rag la dheer yahay bastatan fi lcilmi waa sacnaan aqooneed horta uu leeyahay ninkan dhan kastoo loo dayaba aqoon buu ku xallinayaa hadday dagaal tahayna kaartooyinka dagaalka nin aad iyo aad ugu fogaaday weeye nin markaa aqoonyahana weeyaan kow waljismi nin jidhkiisa uu buuxo oo haybad leh oo indhaha marka la saaraba laga haybadaysanayo weeyaan nin magaan ah oo gaaban oo irifahoo aan indhaqabatin lahayn ma aha waa nin haykel iyo haybad iyo joofle weeyaan oo mar allaaliya marka cadowgu ay arkaan wixii aragtideedu ku deeqdaa oontoodii ku deeqdaa bay soomaalidu tiraa ninkani marka ugu horraysaba haybadda iyo joofkuu ragga yani ku didsanaya wallaahu ilaahay yu'tii milkahu ilaahayna isagaa siiya boqortinimo man yashaau cidduu doono ilaahay idinkala tashan maayo ciddii uu mas-uuliyadda u dhiibayo wallaahu waasicun caliim ilaahay waa ilaah waasic fadligiisu yahay caliimna addoommihiisa oo kala yaqaana waqaaluu waxay idhahdeen waqaala lahum nebiyuhum weliba wuxuu yidhi nebigoodii baa wuxuu ku yidhi ninkan sowma rabtaan in aayad iyo mucjiso inuu ilaahay xaggiisa laga doortay in la idinka muujiyo sow dooni maysaan haabay yidhaahdeen wuxuu yidhi taabuudkii iyo sunduuqii nebiyullaahi muuse iyo nebiyullaahi haaruun ay ku ridan jireen mataacooda oo ushii nebi muuse ay ku jirto oo qurubkii iyo jajabkii
looxaantii kitaabkii towreed ay ku jiraan oo maryihii nebiyullaahi muuse nebiyullaahi haaruun ay ku jiraan taabuudka caynkaasa ayay wadan jireen oo barako iyo sakiina ay la socon jirtay taabuudkii sidaa ahaa cadowgii gaalada ahaa ee ka adkaadayba xataa taabuudkii ka qaatay waxay taariikh lahaayeen oo dhanna wuu ka qaaday taabuudkii baa ilaahay idiin soo celinayaa nimanka gaalada ana halkay dhigeen buu ka soo qaadaya malaa'ig baanu u soo dhiibayaa isagoo hawada marayana waad arki doontaan ninka taaluut la yidhaahda baa la hordhigaya waad arki doontaan haddii aad mucjisadaa aragtaan ku qanco oo ninka raaca qaala lahum nebiyuhum nebigoodii baa ku yidhi inna aayata mulkihi waxaa u daliil ah inuu mulkigii iyo abbaanduul yahay an ya'tiyakum taabuutu inuu sanduuqii idiin yimaado nebi muuse oo fiihi dhexdiisa ay ku jirto sakiinatun xasilooni ayuu ilaahay taabuutkaa soo raaciyaa min rabbikum xagga rabbigiin ayaa xasilooni idinka iman doontaa marka taabuutkaas idiin yimaado taabuutkaa waxaa kaloo ku jira wa baqiyatun hadhaagii mimaa taraka wixii uu ka tegey aalu muusa wa aalu haaruuna aalkii nebi muuse iyo aalkii nebi haaruun hadhaayaalkii ay ka tegeen aahaartooda ah baa taabuutkaa ku jira taabuutka taxmiluhu lmalaa'ikatu malaa'ig baa xambaarsan inna fii daalika arrinta caynkaasi laga soo qaadi doono laga soo faramaroojin doono gaalada la aayatan cibraa ku sugan lakum idinka in kuntum mu'miniin wa haddaad iimaan leedihiin falammaa fasala sidii bay noqotayoo ninkii taaluut lo odhan jiray wuxuu diyaarsaday ciidankiisii isaga oo kumayaal ay yihiin qaybtii ka hadhayna ay hadhay oo laba qaybood waa kuwii naga soo hadhay qayb iyagu waa kuwii markii dagaal la sheegayba ay wash ka tidhi iyo qaybtii qabyaaladdu qaaday way inaga hadheen labadaasi intii kale ayaa soo raacday falammaa goortii fasala uu la soo soocmay taaluutu ninkii taaluut la odhan jiray biljunuudi ciidankii markuu guryaha ka soo baxay ee meel bannaana la isugu yimid oo ciidankii oo keliya ah ayaa ciidankii markay safarkii galeen ayay aad u harraadeen deedna wuu joojiyey meel buu joojiyeoo wuxuu ku yidhi qowmi yahow sooma harraadan idinhaa webi baynu la kulmi doonnaa webigaa aynu la kulanno nimowna ha ka haagin oo aad ha u cabbin ilaa inaad qurfo yar darsato oo aad cunaha ku qoysa mooyaane waa amar milatari weeye ciidankii amarkaasuu siiyey isagoo ku kala soocaya bal ninkii ay daacad ka tahay inuu amarka qaadan lahaa iyo ninka ishaafalataynaya ayuu ku kala soocay webi baynu la kulmaynaa webigaa taariikhdu waxay yidhaahdaan magaciisa waxay yidhaahdaan nahru ashariica ayaa la yidhaahdaa waana waadi iyo doox iyo tog u dhaxeeya oo urdun iyo falastiin dhexdeeduu dhacaa nahru shariica la yidhaahoo urdun iyo falastiin dhexdeeda ayuu dhacaa webigaasna waa lagu imtixaamay falammaa fasala taaluutu biljunuudi markuu ciidamadii gaar ula baxay qaala wuxuu ku yidhi ina allaha ilaahay mubtaliikum waa idin jirabi doonaa binaharin webiga laydhaa nahru shariica laydinku jirabi doonaa oo idinkoo harraadan baynu webigaa ku beegmaynaa faman shariba minhu ninkii webigaa aad uga cabba falaysa minii iga mid ma ahan oo waxaa dhacday baa laydhaha ninkii aad u cabbayba intay calooshii weynaatay unbuu kici ka kari waaye webigiiba kama soo tallaabinba halkaasuu ku hadhay faman shariba minhu ninkii aad uga cabbo webiga falaysa minii iga mid noqon maayo oo wuu iga hadhi doonaayo ogaada oo ilaahay baa iga reebaya wuxuu ilaahay diidayaa hadhow inuu igu cadfuro markaan dagaalka galo waman lam yacamhu ninkaan dhadhaminin fainahu minii kaasaa aniga i raacayo iga mida ilaa marka laga reebo man ruux ikhtarafa darsaday qurfatan sacab hal darsiimo ah ninkii darsaday ee intaa ku qancay ninkaasi waa ninka i raaci doona biyadihi gacantiisa hal qurfo ah buu darsanayaa xulquumka iyo hunguriguu ku qoynayaa ninka amarkaygaa qaata qurfadaasuu ilaahay u barakaynayaa uu ku harraad bixi doonaa ninka amarkayga diidaana calooshaa weynaanayso maba i raaci doono marka qurfa waa darsashada biyadihi hal mar buu gacanta darsaday kaasi isagu wuu i raacayaa fasharibuu minhu way ku kowkabeen minhu webigii bay ku kowkabeenoo aad bay u cabbeen ilaa qaliilan minhum in yar oo intii la socotay ka mida mooyaane
in yaroo intii la socotay ka mid ah mooyaane raggii badankoodii way ku kowkabeen oo waadigii iyo webigii bay aad iyo aad isugu wadnagooyeen waxaa la yidhaahdaa 70,000 bay ahaayeenoo 70,000 4,000 keliya ka soo hadho aan webiga cabbin darsasho mooyaane intii kale oo dhan webigii way ka cabbeen halkii bay ku hadheen 4,000 baaba nebigii yani qaa'idkii ku soo hadhay فلما جاوزه فلما قرت جاوز قدبه إسقو فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ما فلما جاوزه قدبه هو وبيجي مركو وبيجي كتلابي هو إسقو طالوت إيه والذين آمنوا معه إيه أنت مؤمنين تأهيد لسعتي مركي أي كتلابين وبيالكي وبيجي قالوا وحيد هذين قيب كلا هدنا وحيد لا طاقة لنا اليوم awood maanta aanu kaga hortagno ma jirto bijaaluuta ninkan gaalka ah jaaluut ah iyo wajunuudihi iyo ciidanka gaalada ninka watayna magaciisa waxa la oran jiray jaaluut mu'miniinta abaanduulkoodana waxa la oran jiray taaluut midna waa jiim midna waa ta marka jiimku waa gaalka ta'duna waa muslimka oo ninka qaa'idka muslimka la oran jiray قالوا حيرا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ويعتابين وحيرادين عيدا عدد يعدد مد آنو كغهر تغنى ما هينا طالوت محان يلا معيدا الحاد كالي قال كاسي وطان وافك وقال قال وحو كويري مركا إساقو قناعة إلهي نسرقي سكو قبا قائدكو وحو كويري قال وحوري وحاهد لي الذين كوي يظنون يقين سنا أنهم إيقوا ملاقوا الله إن إلهي لكل من دونان كوي قلبي قود الدكتي يقينتو ومن واحد هذين كم من فئة بدنا كوح أو قليلة يريد أو غلبت كأتكاتي فئة كوح كثيرة كبيرة يعني كثيرة بدن واحد ورمي سأوسو جوجتين أما كتبتو إذن كورنتي أما إذن كبقوا بجوجي على هيدين عيدا ير أو عيدا بدن كأتكاتي intee baad u soo joogteen mitid farayar midhihii bataa kama macaashaan buu marka haddii aa u mitidaan diintiinna nasriguna xaggiina u ahaado ilaahay baa idin gargaari doona mu'miniintii alla yaqaanka ahaa oo yadunnuuna yaqiinsanaa annahum iyagu mulaaquu allaahi inay ilaahay la kulmayaan kuwii yaqiintu ay ka buuxday ayaa nimankii wacdiyey oo waxay ku yidhahaan kam min fi'atin بدنا كوحو قليلة ير وغلبت كأتكاتي فئة كثيرة عيدا بدن بإذن الله كأتكاتي إذا مكألك كأتكاتي الله بدنا حال عين كاسي والله إلهينا مع الصابرين انت صبرت أي معود إياه وربي واي ما أنت ميلا قال ابتمها هنا هذا إنه دماننا شرف بينه كل دمانا إنا يجهاد بإواية دقال كقال بير هذين واي هاي ولما قورتي برزو أي اسم مغدين لجالوتا وجنوده مؤمنين تي مركا اسم مغدين جالوت عيدا كيسي نيكي عيدا كبدنايا جالوت ايكو من يالك وتي يا مؤمنين تي أفر تكونها مركا اسكم مغدين مؤمنين تي مدب بي أفايفليين وعررين ما يفايتامين مركب إلهي بي عسكدين صدح مسلوي إلهي بريين قالوا حيرادين ربنا ربك يوم أفرق نغهوري أو نغشب علينا كركا يغا صبرا إلهي وصبر هرت النصي ونقو أرزاق كو وثبت أقدامنا فول باع بيضاء ومركع عيدا كلا يسكهر يمادو بوديها إسلار دعي إلهي ولغها ندولك نوغو أتك وانصرنا نوهيلي على القوم الكافرين لبنتنا إله وأنك النصي فهزموهم ويتبيين بإذن الله بيكتبيين وقتل داود جالوتا عيدا كان ماشا مريا أفرتكون وحال الصعدة نبي الله داود مركا النبي أحين مؤمن الله يقان وأنبياء دي مركا الله مقا أولي مركا الرسالة دي الوسود جنو دأير أيها كتشرا داود إيوه وحاوض حضلي طالوت أو أباندولك عيدا كا وحو يلي مركا داود بو دي وحو كأركي نين كان محانكو هذا ملامح دي سئيو inuu yahay nin lagu soo jiro ayuu firaasadii ku fahmay wuxuu yiri maanta hadii ciidanka asbaabtay ku jabi lahaayeen ilaahay oo sabab kaaga dhigo ballan waxaan kuugu qaadayaa inaan inantaydana kuu guuriyo mulkiga maanta anigu aan gacanta ku hayana inaad gacan yarahayga noqoto sidii bay ku heshiiyeen marka ciidankii intaana isku dagelinba
nebiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam marka aan nebi ahayn oo wiil dhallinyaro ah ayaa wuxuu qaatay dhagax yaroo gacan buuxiisa ayuu qaatay deedna waraf buu watayoo warafkii buu saaray intuu warafkii lulay ayuu ku sii daayey ciidankii gaalada ahaa halkaa maskax garaadka ayay ninkii jaaluud la odhan jiray ka cuskatay wuu dhintay markiiba ciidan dee qaa'idkiisii dhintay nin waliba habartaa ha ku tabato ayaa ka dhacday sidii bay markaa ku xidideen daaluud iyo nebiyullaahi daawuud markii dambena mulkigii waxaa la wareegay nebiyullaahi daawuud rasuulnimona waa loo raaciyey melikna wuu ahaa rasuulna wuu ahaa sidaasay markaa meliknimadu gacantiisa u soo gashay baa laydhaa fahazamuuhum way jebiyeen muslimiintii baa jebisay biidni illaahi idamka allay ku jabeen gaaladii waqatala daawuudu nebi daawuudoo ilmo yar wiil dhallinyaro abaa wuxuu dilo sabab u ahaa jaaluuta ninkii la odhan jiray wa aataahu allaahu lmulka nebi daawuud ilaahay mulki buu siiyey waalxikmata iyo xikmad buu siiyey wacallamahu ilaahay baa baray nebi daawuud mima yashaau wacallamnaahu صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم وعلمه وابر إلهي مما يشاء وحي إلهي دوني بأن النبي داودنا لبري ولولا فضل الله ولولا دفع الله الناس هدي أني تشري لهين إن لقد دفاعه ضدك بركود ببعض بركة كلي إن لقى هرجي هداني تاسدع لهين لفسدت الأرض أنكوا فسهاد لها هدي قال دونيش لقى إياغو oo waxay xumaynayaan in lagu daawado oo muslim yurka yiraahdo la waayo oo gaalow adigu maanta adduunyada ku amarku taagle leeyda sida maanta joogta arladu way fasahaadaysaa sida maanta fasahaadka aynu arkayno meel kasta huq iyo qaylo un ay ka yeerayso meel kasta qof muslimahum baa lagu ciqaabaya meel kastana masaajid muslimiintu lahayd ayuunba ama kaniisad laga dhigaya ama macbad laga dhigaya ama tambal laga dhigaya oo idinkii ugu dambeeyay dagaaladii ugu dambeeyay siinguhu ay muslimiinta ay ku gumaadeen meeshii masaajidka ahayd ay ka dhigeen kaniisadooda iyo tambalkooda ay ka dhigeen meel kasta oo aad qayla ka yeedhaysaba meeshaas waxa weeyaan waa meel ciriq islaam ku jiroonba taagan sababtuna waxay tahay markii ay ka maageen muslimiintu inay sharaftooda iyo diintooda ay badbaadiyaan waana ta ilaahay ka digayey haddii la iska difaaci waayo masaa'ibaha iyo xumaanta iyo fasahaadku xadhkuhu soo goosta arladana uu wada saameeya walowlaa dafcu llaahi annaasa haddii ilaahay aanu ka horgeynaynin dadka bacdahum barhkoodba bibacdin barhka kale lawallaahi baan ku dhaaranee fasadat ilardu arladu way fasahaadi ولكن الله حسي شيء إله ذو فضل وحو ساحب يحي ديق على العالمين أميها أوردن إلهي ديق بو وصية تلك آيات الله وحا أنكم مرينا إن تاريخه وآياته إلهي نتلوها عليك دشادا نكيرينينا بالحق يجو حقيقك ورمي حقا وإنك أدق النبي الله لو والله بان كدارنا من المرسلين إرقد إلهي ودور تدري بعد كم تهي أي نبي النبي عليه الصلاة والسلام وبالله التوفيق تلك الرسل وبالله